dhalinyarada gabdhaha ciidamada qalabka sida bahda saxaafadda inta magac looga soo qayb galay munaasabadan walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib ilaahay subxaana wa tacaala mahad dhammaanteed leh noo suurto geliyey fursado iyo hawl muhiim ah inay noogu qabsoonto muddo kooban haddaan nahay reer galmudug. taa ilaahay baa ku mahadsan. runtii waxaan leeyahay waa habeen taariikhda galmudug ka galay ama ka gelaya baal dahaba caawa sida hore loo wada xusay. waxaan halkaan rabaa inaan runtii fursadaas dadkii keenay ama ka shaqeeyey dhammaantood uga mahad celiyo. waxaan rabaa inaan si gaara u xuso madaxweynihii hore ee galmudug walaalkay axmed ducaale geelle xaaf. tanasulkii walaalnimadii odatinimadii uu u muujiyey reer galmudug siduu sheegay waa wada hadalnay iyadoo aan roonaan iyo uturis iyo inaan galmudug loo turo waxaan ahayn ku dhex jirin ayaan isku tanasulnay isna aqbalnay. waa oday galmudug waa aabihii galmudug waa runtii taariikhda xusi doonta hawshii uu soo qabtay oo ay ka mid tahay isu imaad galmudug la isugu keeno caasimadeeda inuu dhidibada u aasay axmed ducaale geelle. guushaas taariikhiga ah ee ay galmudug heshay waxaa sidoo kale ka qayb galay madax fara badan, mas-uuliyiin badan, odayaal, salaadiin, culamaauddiin, qaybaha kala duwan ee bulshada intay ka qayb gashay dhammaantiin sidaasoo kale aan idiin mahad celinaynaa. walaalayaal, adduunka markii doorasho ay dhacdo meel kastoo la joogo doorashadu waxay keentaa kala duwanaansho, waxay keentaa kala qaybsanaan. mararka qaar waxay dhammaataa markii doorashadu dhammaato waxaa loo wada tanasulaa ama la isugu yimaadaa danta iyo horumarka dalka. haddii doorashadii isriixriix yar ka jiray waxaa ilaahay fadligiisa reer galmudug inay isugu tanasuleen horumarka iyo hor u socodka dalkooda iyo dadkooda. marka xogaagii doorashada ka dhashay waxaan mar labaad rabaa inaan xuso dhammaan saaxiibadii iyo walaalihii kala duwanaaday ama isriixriixay dhammaanteen caawa waxaan naha mid. waxaa halkan nagu soo dhammaaday dib u heshiisiintii siyaasadeed. halkaasay caawa noogu soo xirantay sidii horeba loo wada xusay. waxaa bilow noo ah oo aan gudagelayna haddii ilaa yidhaahdo dib u heshiisiin bulsho taasoo la sheegay ama la wada og yahay muddo inay soo jireen shaqaaqooyin guud ahaan soomaaliya ka soo jireen, gaar ahaan galmudug ka jiraan. shaqaaqooyinkaas iyo iska hormaadyadaas oo u baahan dib u heshiisiin bulsho iyadana waan ka howlgelaynaa, waana laga wada hadlay, waana noo qorshaysan tahay. qayb ka midana waa soo qabsoontay sida huurshe iyo xeraale oo caaway nabad buuxda aan uga fadhino haddii laa yidhahdo. howlaha hortawinta leh waxaan kaloo u dhaqaaqaynaa haddii ilaa yidhaahdo dhismaha hay-adihii dowladda galmudug. waxaa qorsheenu yahay hay-ado adag, tayo leh, ammaano leh, galmudug meeshay u socota gaarsiiya inaan usoo dhisno haddii laa yidhaahdo.
hay-adahaas waxaa kasoo qayb geli doona ama kasoo mid noqon doona dad nafti horayaal ah astaahila inay galmudug ka gudbiyaan ama ay gaarsiiyaan hadafkeeda iyo ujeedadeeda haddii la yidhahdo dad badan oo laga yaabo inaadnaan caawa u malaynayn ayaa hoggaanka kasoo qayb geli doona aanan ku kalsoonnahay inay nala xaqiijin doonaan hadafka iyo ujeeddada aan leenahay haddii la yidhahdo waxaan rabaa halkaa inaan fariin uga diro dhammaan dadka reer galmudug meel kastay joogaan walaalayaal waxaa noo ballana midnimo wadajir iyo isku tashi meel kastood joogtaan waa isku filannahay wax badan baanan qabsan karnaa wax reer galmudug haystaan iyo soomaali meeshaad ugu jiraanna waa la og yahay waxaan la soo baxaynaa kartidii iyo dadnimadii iyo tiirdhexaadnimadii lagu yaqaanay reer galmudug meel kastoon joogno gacmahan aan isqabsanayna insha allah sidii madaxweyne axmed ducaale sheegay dekedahaan dhisanaynaa eeraboorradaan dhisanaynaa jidadkaan dhisanaynaa kaalmadii kale iyo ciddii kale wax nagu taraysoon helnana waa helaynaa isku tashi si buuxana waxaan leeyahay ku talagala u soo istaaga gacmahana isqabsada wax walbaan gaaraynaa wakti kooban gudihiis haddii laa yidhaah sidoo kale sida la sheegay ama horeba ballanqaadyadeenni u ahaayeen ilaahay idankii taako ka mida galmudug cadowga argagixisada ahi ma haysan doonaan mana dullaysan doonaan kumana sii daahi doonaan waana howlgelaynaa waana u howlgalnay sidii xildhibaan axmed macalin fiqi sheegay saasay u dhahan tahay inay haddaba sii toosiyaan waa yaqaanin reer galmudug dowladda galmudug waxay u taagan tahay hadafkeedu yahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo xoogaynta iyo xoojinta dowladda dhexe ee soomaaliya reer galmudug uma diyaarsanaa kamana fakarayaan in soomaaliya qayb ka mid ihi ficnaan karto qayb ka midna xumaan karto waa la wada ficnaan karaa oo waa la wada toosi karaa oo dowladda dhexe hadday xoogaysan tahay oo ay ku wada kalsoonnahay ayay dowlad goboleedyaduna xoog leeyihiin shaqada laga rabana qaban karaa waxaan ku kalsoonnahay qabnaa midnimo wadajir dowladnimo iyo iskaashi marna kama fakarayno qalalaaso iyo khilaaf waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano khilaafyada jira ee ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada qaarkood haddaan nahay reer galmudug qabadkeedna waa leenahay isu keenisteeda fakarkeedii kartiyeedana waa leenahay dowlad jacayl iyo midnimo jacayl soomaaliyeedna waan laku yaqaan marka walaalihii ama maamuladii iyo dowladda federaalka ee wax ka dhex jiraan diyaar baan u nahay inaan haddii laa yidhaahdo hawshaas galno kalsoonina waan ku qabnaa inaan guul ka keeni karno taasna waa hadafkanaga oo aan leenahay gogosha weliba waxaan dhigaynaa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb haddii laa yidhahdo annaga gacmeheennu waa dhaqan yihiin cidna khilaaf nagalama dhexeeyo dowlad goboleedyada dhammaantood wax nagalama dhexeeyaan dhiba kuwa aan dariska nahay oo odwadaagta nahay wax nagalama dhexeeyaan dulqaadka nagana waa la tishaabiyo waad ogtihiin dhowr jeer in meelnala ka xagtay oona cid noo jawaabin
qolo meelo kale u socotaa nasii martay nasoo martay wax nagu dhifatay annagu marna uma jawaabin weliba madaxdeennada iyo xildhibaanadeennada iyo mas-uuliyiinteena dhammaan iyo siyaasiyiinteenna waxaan isku waraysanay oon ka reebnay in meelaha qaarkood jawaabaha ay mudan yihiin laga baxsho sidaa darteed innagaa ugu habboon cid gobol dhigta soomaali isu keenta khilaafkana bixisa marka qolooyinkii istaataabtay oo isma xallin kartaane gogosha gosamareebtaal oo tijaabadeedii reer galmudug 60 cisho ka yar wixii khilaaf iyo qalalaasa lagu ogaa ku dhamaysay tan kalena waa ka dhowdahay reer galmudug la xama jiray soo diyaar garooba gogosh waa diyaare qolooyinka hadda wax naga sisi naga yihiin iyo qoladiina taabatayna waxagiina jiraa ma jiraan hadda istoosiya wada ganacsi isu socosho hawl wanaagsan Soomaali mid ah wada jir aan ka wada shaqeyno weliba madax walaalahay ah maraba inaan hadda hebel idhaahdee oo wax dagaal badan ku jiro dagaalka yuusan meel walba idinla gelin dagaalka yuusan meelo badan taaban intaas ha lagu siro waxyaabaha labada dowladeed iyo dowlad goboleed iyo dowladaha dariska kala dhex jirana si nabada walaalnimo ah xasilooniya ku dayasho leh aan ku xalino oo ku dhamayno waxaan rabaa inaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celiyo dhammaan reer galmudug meel ay joogaanba taageerada iyo isgarabtaagga iyo gacanta aad noo muujiseen iyo sida aad ugu heelanaydeen oo ugu heelan tihiin heshiiska iyo nabadda iyo dhammaynta khilaafyadii galmudug dhexdeeda ka jiray oo siyaasadeed midka bulshana gacan nagu siiya insha allahu tacaala intii gacan ka geysateen si gaar aan ugu mahad celinaynaa madaxweyne axmed ducaale nabadoon baa tahay saacaddaa laga bilaabo odayga dib u heshiisiinta midda bulsho ayaa tahdiilaya waa lagugu hubiyey lagu dhaafi maayo ciddaa tiraa igu darna waa lagugu daraya haddii la yidhahdo aniga qolo dambe dad aragto oo meelaha wax iska qabta xataa odayda iga tahay anaa ka duqadhe aad iyo aad mahadsan tihiin galmudug mid ah galmudug waacas u bariyey galmudug ay caawa u tahay habeen taariikhiya xildhibaan baxaya iyo siyaasi inta ka tago axmed ducaale ku soo doonaya ma jire waa la joogayaa ballanqaadkaasna waa la baxshay howlo waaweyn oo la malaynayna waa qaban doonaan dilayra guul ayaa noo ballana iyo inaan gaarna dhaqso meeshaan u soconno biidnillaahi tacaala aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu